maalin wanaagsan kuna soo dhawaada channelkeena barta ciyaaraha iyo waliba xaqiiqooyin ku saabsan kooxda kubadda cagta Arsenal isbedelada ay sameysay horyaalka Premier League. cidna dah kama saarna sida ay Arsenal xilli ciyaareedkan ay ku bilaabatay iyo sida ay hadda isku bedeleen. kaliya laba dhibcood ay u jiraan hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Chelsea, Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arsenal ayaa horyaalka Premier League ku daahfuratay laba guul daro oo ka soo gaartay kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Manchester City. balse tababare Unai Emery ayaa sameeyay isbedel muuqda kaas oo keenay natiijo kooxda hadda ka mid noqotay kooxaha ugu guulaha badan ama horyaalka Premier League 6 kulan ee la soo dhaafay. haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa 5 waxyaabood oo Arsenal guusheedii sabab u ah kuwaas oo dhaqangeliyay tababare Unai Emery. midda koowaad waxa ay tahay macaanka badan ama sonkorta in laga mamnuucay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Arsenal. Unai Emery ayaa gabi ahaanba ciyaartoydiisii ka mamnuucay ama u diiday xilliga tababarka inay cabaan cabitaanada sonkorta leh. xilligii uu Wenger joogay inta badan caadi ay ka ahayd inay isticmaalaan dhalooyin badan oo Coca-Cola, Fanta, Sprite-ka, laakiinse hadda Unai Emery in la keeno xerada tababarka waa uu diiday waxyaabaha sonkorta leh. sidoo kale in hadalka la yareeyo hawshan ay badnaato. tababare Unai Emery ayaa diiday inuu ku mashquulo saxaafadda inuu cambaareeyo ciyaartoydiisa inuu la dagaalo xidigaha kooxdiisa. tababarahan ayaa diiradda saaray kaliya shaqada iyo isbedelka ay kooxda u baahan tahay. wuxuuna sameystay hal ku dhig ah keep quiet and work, hadal yar iyo hawl badan. kan saddexaad in taxadir loo lahaado wax walba oo ay kooxda qabanayso. marka la barbar dhigo Wenger, tababare Unai Emery inta badan wuxuu la falgalaa agaasimiyaasha tababaraha ciyaartoyda si uu farxadda ula qaybsado. wuxuu waqti badan geliyaa inuu la sheekaysto ciyaartoyda iyo sidoo kale shakhsiyaadka u xil saaran inay tababarka gaarka sameeyaan. xitaa Unai Emery mararka qaar isaga ayaa ka qayb gala tababarka kooxdiisa. sidoo kale inuu xooga saaray weerarka kooxdiisa. Arsenal xilli ciyaareedkan bilowgiisa waxay sameeyeen inay isku bedesho ciyaartoyda kale ah Alexander Lacazette iyo Aubameyang, ama in si toos ah diiradda loo saaro Aubameyang oo kursiga keedka la geliyo xidiga lagu magacaabo Alexander Lacazette. Lacazette Lyon ciyaaryahankeedii hore waa mid kamid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda Arsenal, balse hadda waxaa lagu mataaneeyay Aubameyang iyadoo labada ciyaaryahanba ay helaan fursado badan oo ay kooxda ka caawin karaan. waliba Arsenal waxa ay heshay weerar hadda 11 gool dhaliyay marka ay labada ciyaaryahan ay wada shaqeynayaan. tan ugu dambaysa in xooga la saaro tababarka kooxda si wada jira ee Arsenal tababar u sameeysaa iyadoo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Gunners inta badan ay ku dadaalaan qaabkii midba midka kale uu la qabsan lahaa. shantan waxyaabood ayuu ka bedelay Unai Emery kooxda kubadda cagta Arsenal, iyadoo Arsenal sidoo kale ay rajeynayso kulamada soo socda inay diiradda saaraan waxyaabaha uu Unai Emery ku soo kordhiyay kooxda.